jaamacadda Golis ee magaalada Berbera ayaa soo bandhigtay koorasyo cusub oo ay ku soo kordhiyeen culumta laga barto jaamacaddaasi ee magaalada Berbera. koorasyadan oo ay tilmaameen in ay ugu muhiimsan yihiin luqadda Ingiriisiga oo ay ka taageerayso jaamacad ajnabi ah oo ku taala magaalada Manchester ayaa waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda Golis ee magaalada Berbera Engineer Nasir Xaaji Cali Shire oo ka warramay muhiimadda ay leeyihiin barnaamijyadaasi ay soo kordhiyeen waxaana hadaladiisii ka mid ahaa barnaamijka ugu muhiimsan caawa halkan aan ku daafurayna waxa weeye in luqadda afka Ingiriisiga iyo koorsooyin kale oo gaagaaban in lagu barto jaamacadda Golis ee Berbera iyadoo oo markaa runtii xidhiidh wakiilasho la samaysay shirkadda loo yaqaan FFOP oo ku taala dalka Ingiriiska magaalada Manchester deetna materialka ama waxyaabaha la dhiganayo luqadda Ingiriisiga iyo maadooyinkaas iyo imtixaanka la qaadayo iyo shahaada la bixin dhammaan waxa bixinaysa LCCI oo ah sidoo kalena munaasabadaasi waxa ka hadlay xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Berbera Professor Aadan Xaaji Cali Axmed oo isaguna kamid ah hormoodada kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda Hargeysa uu istaagay in barnaamijkan oo jaamacadda Golis runtii ka farqeeya Berbera waxay ku soo siyaasay gobolka faa'iidooyin fara badan ay ku soo siyaasay marka la eego dhinaca tacliinta iyo qaar ka mid ah hormoodada kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda Golis ee magaalada Berbera kuwaasoo dhammaantood ka hadlay muhiimadda ay leedahay aqoontu dadka reer Berberana u soo jeediyay inay ka faa'iideystaan koorasyadan ay soo kordhisay jaamacadda Golis ee magaalada Berbera xubno ku hadlay afka shirkadaha ee magaalada Berbera ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay ay shahaadadeeda bixinayso jaamacado caalami ah oo laga leeyahay waddanka Ingiriiska Cabdikariim Siciid Saalax Home Cable TV Berbera